si kasta oo uu shaydaanku kugu qurxiyo camalka xun waxaa qofka muslimka ah looga baahan yahay inuu ka toobad keeno oo uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u soo noqdo sida saxaabigii weynaa ee Abu Mihjan al-Thaqafi ee ka mid ahaa asxaabtii nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. magaciisu wuxuu ahaa Abu Mihjan al-Thaqafi, Allah ka raali noqdee. waxaa Ilaahay ku ibtileeyay cabista khamrada xilligii jaahiliyada intii aan Ilaahay soo dirin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. wuxuu kaloo ahaa gabyaa aad iyo aad u jeclaa khamriga, qalbigiisuna la dhacsanaa ilaa mar uu wiilkiisii la dardaarmayay laga qoray inuu yidhi, markaan dhinto igu duug geedka canabka dhinaciisa si lafahaygu u cabaan khamrada marka unugyadayda dhiiggu ay dhintaan. hana igu duugin dhul bannaan oo cidlo ah, waayo waxaan ka cabsanayaa markaan dhinto inaan khamrada dhadhamin waayo. markii uu soo islaamay Abu Mihjan, Ilaahay ka raali noqdee, weli naftiisu ma aysan ka go'in cabistii khamrada, waxaana uu la dhuuman jiray cabisteeda iyadoo markii lagu arkana la karbaashi jiray. deeto waa la karbaashaa, isna waa uu ku noqdaa, misna waa la soo qabtaa oo waa la karbaashaa, misna waa uu cabaa. markii muslimiintu u baxeen dagaalkii weynaa ee Qaadisiya ee lala galay Farisiyiintii Ciraaq 13 bishii Shacbaan sanadkii 15aad ee Hijriyada, waxaa Abu Mihjan uu qayb ka ahaa muslimiintii u duushay Ilaahay dartiis ee khaliifkii islaamka Umar bin al-Khattab, Allah ka raali noqdee, uu u diray duulaankaasi. Abu Mihjan waxa uu xirxirtay qalabkiisii dagaalka isagoo horay u sii qaatay sahaydiisii, mana uusan iloobin inuu xoogaa khamro ahna meel ku sii shubto, isagoo kadibna ku dhex qariyay alaabtiisii. inkastoo saxaabigana jaliilka ah maandooriyahaasi laga kari waayey, haddana waxa uu ahaa nin marka dagaal ay noqoto aan xaggiisa cadow ka soo gelin oo dagaalyahan geesi ah. waana sababtaasi midii Umar bin al-Khattab, Allah ka raali noqdee, uusan uga reebin jihaadkaasi. boqorkii Rustum ee Farisiyiinta xukumayay waxa uu dalbaday inuu la kulmo hogaamiyihii muslimiinta Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah ka raali noqdee, oo ahaa ninkii uu Umar bin al-Khattab u xil saaray hogaaminta ciidanka muslimiinta. waxaana markaa kadib bilowday in labada dhinac ee muslimiinta iyo gaaladu ay isku hub urursadaan. markii la tegay goobtii dagaalka, intii aysan labada ciidan fooda isdarin, waxaa la waayay Abu Mihjan, Allah ka raali noqdee, oo shaydaan uu waswaasiyey. waxaana uu ka fogaaday ciidankii uu la socday ee muslimiinta isagoo meel fog ku soo cabay khamrigiisii. laakiin markii uu ogaaday taliyihii muslimiinta Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah ka raali noqdee, in Abu Mihjan radiyallahu canhu uu falkiisii khamri cabista ku noqday, aad iyo aad ayuu u carooday, waxaana uu ka reebay Abu Mihjan inuu ka qayb galo dagaalkaasi, isagoo silsilad addimada uga xiray ugana dhex tegay teendho yar. markii uu bilowday dagaalkii muslimiinta iyo gaalada oo Abu Mihjan uu maqlay danankii fardaha iyo qayladii halyeeyada, ayuu ishayn kari waayey, waxaana naftiisu ay u hilowday inuu Ilaahay dartii u shahiido oo uu dagaalkaasi ku dhinto isagoo u adeegaya diinta Islaamka. waayo xitaa haddii uu ahaa mid khamri cabistiisa ku dheeraaday, haddana waxa uu ahaa saxaabi muslim ah oo jeclaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abu Mihjan ayaa ciil dartiis intuu ishayn kari waayey waxa uu tiriyey gabay isagoo yidhi, murugo waxaa kuugu filan in farduhu dhex galaan warmaha, aniguna halkan ku xirxirnaado. qalbiga ayaa i jabay inaan arko goobta dagaalka iyadoo aysan jirin cid codkayga maqlaysa iyo cid i arkaysa toona. inaan goobjoog u ahaado islaamka oo gurmad iga dalbanaya, isla markaana aan u gurman karin islaamka kolkuu ii yeero. waxaan ahaa mid maal iyo walaalo badan leh, way iga tageen anigoo keligay ah oo aan walaal haysan. kadib Abu Mihjan waxa uu ku qayliyay codkiisii ugu dheeraa
ilaa ay soo milicsatay xaaskii hogaamiyihii muslimiinta Sacad binu Abi Waqaas. markay u timid ayaa waxa uu ka dalbaday inay silsiladda ka furto si uu uga qayb galo dagaalkaasi, isagoo ku dhawaaqaya inuu toobad keenay. waxaana uu mar kale ritay gabaygiisii isagoo yidhi: Suleyma, seeftayda isii aan cadowga ka dhargee, maanta seeftayda dhiig ayay u ooman tahay, ifasax aan hal mar ku soo wareego goobta dagaalkee, kurbada ha iga dulkacdo qalbigaygana aan dabiibee, ballan Ilaahay baan galay, Ilaahayna ballantiisa kama baxayee, haddaad iga furto inaan dib ugu noqonayn. xaaskii Sacad binu Abi Waqaas Allaha ka raali noqdee ayaa weydiisay waxa uu doonayo Abu Mixjan, waxaana uu ku yidhi: Ilaah baan kugu dhaariyey iga fur, lugahan iga xiran, faraska Sacad ee Balqaana isii, waan soo dagaalamayaa. haddii Ilaahay ii qoro inaan shahiido oo dagaalkaasi ku dhinto waa sidii aan doonayey, haddii aan nolol ku soo laabtana ballan Ilaahay baan galay inaan soo noqonayo oo aad sidii aan u xirnaa aad ii xirayso. Abu Mixjan aad ayuu u baryey xaaskii Sacad binu Abi Waqaas ilaa markii dambe ay sii daysay oo ay silsiladdii ka furtay, iyadoo siisay faraskii Sacad binu Abi Waqaas ee lagu magacaabi jiray Balqaa. Abu Mixjan Allaha ka raali noqdee waxa uu xirxirtay qamiis bireedkiisii, waxaana isagoo wejiga duubtay uu sidii libaaxii ugu booday faraskii dushiisa. kadibna waxa uu isagoo rajaynaya inuusan nolol uga soo noqon dagaalkaasi uu dhex jeexay cadowgii islaamka. muslimiintii oo cadaadis xoog la saarnaa ayaa waxaa u soo gurmaday dagaalyahan aysan garanaynin oo jihada bidix ka yimid, ciidankii gaaladana siduu seef ugu garaacayay uga baxay jihada midig, misna haddana ku soo laabtay oo jihada bidix uga baxay. muslimiintii oo yaaban ayaa Ilaahay guushii siiyey. markii uu gabalkii dhacay ayaa Abu Mixjan Allaha ka raali noqdee waxa uu ku laabtay halkii uu ku xirnaa, waxaana faraskii Balqaa uu ku xiray barteedii, isagiina waxa uu ku laabtay teendhadiisii, kadibna waxa uu iska xiray labada lugood. Sacad bin Abi Waqaas Allaha ka raali noqdee oo ka sheekaynaya dagaalkaasi ayaa intii uu dagaalku socday sheegay inuu arkayay ninkii aysan garanayn ee ka dhinac dagaalamayay, waxaana uu mar niyadda iska yidhi: ninkan seefta siduu wax ugu garaacayo waxaad mooddaa Abu Mixjan, faraskana siduu u boodayo waxay is-shabbahaan Balqaa. laakiin sidee u dhici kartaa? waayo Abu Mixjan wuu xiran yahay, faraskii Balqaana xabsigan uga soo tegay. markii uu Sacad soo laabtay ayuu xaaskiisii weydiiyey: aaway Abu Mixjan? waxay tidhi: teendhadaas ayuu ku jiraa, wuuna xiran yahay. faraskii Balqaana aaway? waa kaa isagana xaggaa ku xiran, ayay tidhi. kadib Sacad binu Abi Waqaas Allaha ka raali noqdee waxa uu xaaskiisii uga sheekeeyey sidii uu dagaalkii u dhacay iyo ninkii la garan waayey ee sida ba'an u dagaalamayay, guushana u horseeday muslimiinta, ilaa heer muslimiintu ay is yidhaahdaan: armuu ninku bini'aadam ahayne ee uu yahay malag Alla idiin soo diray si uu garab idiin siiyo. waxaana uu geesigaasi ku tilmaamay inuu ahaa ninkii ugu dagaalka fiicnaa dhammaan muslimiintii goobtaasi ka dagaalantay. kadib xaaskii Sacad binu Abi Waqaas Allaha ka raali noqdee ayaa u sheegtay in ninkaasi uu ahaa Abu Mixjan, Ilaahay ha ka raali noqdee, haddana uu ku jiro halkii uu markii hore ku xabisay. Sacad binu Abi Waqaas ayaa u yimid Abu Mixjan Allaha ka raali noqdee, waxaana durbadiiba uu arkay faraskiisii Balqaa oo dhiig uu ka socdo, isagoo kadibna xariggii ka sii daayay Abu Mixjan Athaqafi, Ilaahay ha ka raali noqdee, waxaana uu ku yidhi: Ilaah baan ku dhaartay inaan maalin dambe kuu jeedalayn doonin khamri dartiis. Abu Mixjan ayaa isna ku jawaabay: anigana Ilaah baan ku dhaartaye inaan weligii dambe khamri cabi doonin. sidaas ayuu Abi Mixjan Athaqafi
ilaahayaa ka raali noqdee kaga haray oo uu uga toobad keenay khamrigii isagoo ka mid ahaa asxaabtii nebigeenna Muxamed sallallahu calayhi wasallam ee u soo halgantay diinta islaamka ee aan maanta macaankeeda ku raaxaysanayno.